inay tiraado wax jajabiya aan wanaag mooyee aan afkeeda lagu arag waxaan fariin u dirayaa dadkaan waalidka u ahay ee degan gobolka Sool magaalada Laascaanood ee aan jecelahay ee aan u duceynayo ee aan ka damqanayo dhibaatooyinkii maalmahan soo gaaray wararkan kelmadaha la isu geegeeyay wax afkayga ka soo baxay maaha waxaan wanaag ahayn iyo kalgacayl uma hayo marka waxaan ka codsanayaa ciddii ilaahay taqaanana way garanaysaa inaanay afkayga ahayn ciddii aan ogeyna maanta ha ogaato kelmadda maanan odhan waxaan la rabaa horumar waxaan la rabaa nabadgelyo waxaan la rabaa horumar gobolka Sanaag dadkaan ayayda wahay waxaan rabaa caruurta guryahoodii ku soo noqoto waxbarashadoodii ku soo noqoto hooyooyinka guryahoodii ku soo noqdaan wixii inaga burburay iyo wixii naga dhintay ma soo noolayn karno inta baaqiga aynu dhisano oo aynu wanaag ku soo barbaarno ubadkeena aynu horumar tiigsano walaalnimo tiigsano kalgacayl tiigsano wax wada qabsi tiigsano kalgacaylkeenu yu dhaawacmin kalgacaylka ummadeena Soomaaliland ee marnaba dhaawac aanu ku dhicin marka waxaan leeyahay ciddii si xun u samaysayna aduun baa taa iska samaystay kelmadahayga iska samaystay si qalada u fahamtayna waan ka bogsiinayaa ka soo noqda kalgacayl baan ayaan idin rajaynayaa waxaan doonayaa rugta ganacsiga waxaan aad ugu faraxsanahay bandhigaad maanta soo dhigteen yuu sanadkii mar inaga noqon waxaan ku talinayaa haday suuro galayso inay wareegto carwadu wareegto gobol walba mar la geeyo insha Allah bidmillaahi kariim Sool iyo Sanaagna ay ka soo qayb galaan oo ay carwooyinkan oo kale iyaguna ay ka suuro gasho qaar la mid in laga soo bandhigo marka Somaliland waxaan leeyahay Somaliland oo dhami ha waarto Somaliland oo dhami horumar iyo wanaag iyo ayaan u rajaynayaa waxaan kalgacayl u dirayaa dadkan ayayda wahay hooyo bogsada hooyo wanaag qaata hooyo nabadda ku soo noqda hooyo aynu gacmaha iswada qabsano hooyo aynu si saamaxno hooyo aynu gacmaha is qabsano